السلام عليكم صاحبتي سعدين شاقبة دمان مسلسلدii aan soo qaatay in ka mid ah hadda waa ay dhamaadeen sida Riyaa Gabi oo ah riyadeeda af Soomaali ahaan oo ay waday dhamaan TV-yada ee Soomaaliya markii laga reebo Fanbroch iyo asal sidaan filay ma sameyn kulli waxa waday Kaafi iyo Astaan inta arkay asigana waa dhamaad waxa ku dhamaan doona xalqada 16aad goosgooskii labaadna waa laga soo saaray kulli xalqadii in la soo fasaxo baa dhiman waxa laga yaabaa xiliga muuqaalkan duuba in xalqada la soo fasaxay marka musalkaasina sida ayuu idinku daayay waxaa kaloo jira musalka labaad oo asagana la hubiyay inuu dhamaaday waa saaxiibsi silar ama walaalihii la ciilay asigana wuxuu ku dhamaaday 51 finaalkiisa ugu dambeeyna waa lagu soo qoray oo xalqadii ugu dambeysay 51 goosgooska laga soo bandhigay aa lagu shaaciyay dhawaas musal sidaas ay ku dhamaadeen dhanka kale waxaa jirta akhbaar muhiim ah kuma saabsan aflaamta laakiin waxay ku saabsan tahay qof ka mid ah jalaayasha Turkiga waliba kuwada dhalinyarada ah inuu dhintay waliba bisha hadda la soo dhaafay dhamaadkeeda 28 February 2026 ayuu dhintay magaciisa waxaa la yiraahdaa Ibrahim Yildiz sanadkii la soo dhaafay ee 2025 ahay dalka Turkiga waxaa ka jiray dabeelooyin aad u xoog badan dabeelahaasi ayaa waxay gaareen heer xad dhaaf ah Ibrahim asigoo wadada socda ayaa waxa ku soo duldhacay geed aad u weyn kaas oo sabab u noqday in uu dhaawac daran gaaro waliba xubnaha gudaha naftirkooda ay dhaawac ka gaaraan dhaawac banaanka kaliya maaha waxa la geeyay isbitaal waxaana ku jira muddo aad u badan mar walbana dhaqaatiirtu waxay ku sameynayaan qaliin si ay u badbaadiyaan balse marba haddii tii alla ku imaado cid kastoo dunidan saaran oo ku badbaadi karta ma jirto ugu dambeyn waxa uu naftiisa waayay 28 February 2026 geeridiisana waxaa baraha bulshada la wadaagay asxaabtiisa waxayna inta badan ka mid ahaayeenba kuwa kula jiray taxanaha Duybeeni iyo taxanooyin kale taxanaha Duybeeni ama Imaqal ayaa ahaa mid ugu caansanaa oo uu sameeyay aktarkaasina kuwa ugu waaweyn masa jilaayaasha ugu horeeyay ee baraha bulshada ku faafiyay geeridiisa waxaa ka mid ahaa Alina Boss midana waxay ku jirtaa Kulus Orhan Sajacla aaskiisa wuxuu ahaa kowda bishan hadda caawa laba noqonaysa balse maanta ay ahayd markii la aasay aaskiisana waxay imaaday taageerayaashiisa iyo asxaabtiisa waxa uu ahaa qof aad u furfuran dabeecad wanaagsan leh sida intooda badan sheegeen jilaayada caanka ah ee Alina Boss waxa ay sheegtay inay aad uga naxday markii ay maqashay inuu isaga dhintay wuxuuna ahaa 27 jir marka waxa leenahay Ilaahay u naxariisto waxa uu dhintay sida filay bisha Ramadaan qof walba dunidan saaran kulay waxa sugay waa waxaan u rajaynaynaa in uu Alla agtiisa khayr kala kulmo waxaan intaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan ayaan kugu talgalnay caawa waxaan idin leeyahay sidaas nabadgelyo asxaabay muuqaalka laagta saari ah ana midasmi ilooba wiilgay mac salaama